dhacdada naadirka ah ayaa timid kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump sheegay inay gudaha Mexico ka fulin doonaan howlgallo ka dhana kooxaha daroogada dhoofiya doonistaas oo Mexico docdeeda diidmo cad kaga jawaabtay. Hayeeshee kadib diidmada Mexico ee in xuduudaheeda kooxaha kartelka lagu beegsado, waxaa dhacay ficil ay sameeyeen ciidamo ka tirsan kuwa badda Mareykanka oo la sheegay inay qaadeen tallaabo sababi kartay in dagaal ciidan si sahlan uga dhex qarxo labadan wadan. Sida aynu ka xigaynay TV-ga CBS, kooxdan ciidanka ah ayaa mid ahaan xeebaha waqooyi bari ee dalka Mexico inta tageen bilaabay inay ka taagaan ama ku talaalaan calaamado ay ku qoran tahay inay goobtaasi tahay dhul ay iska leedahay wasaaradda difaaca Mareykanka ee haatan magaceeda loo bedelay wasaaradda dagaalka. Macluumaadka ku qornaa calaamadahan ayaa waxaa sidoo kale ka mid ahaa in ciddii amar la'aan tagta dhul xeebeedkaas la xiri doono ama baaritaan adag lagu samayn doono. Boorarka oo tirobeel ahaa ayaa laga taagay dhul cabirkiisu ballaarnaa, taasoo dowladda Mexico ku fasirtay daandaansi dagaal oo iyaga ka dhan ah iyo xadgudub qaawan oo lagula kacay xuduudahooda, iyadoo daqiiqado kadib ay goobtaas tageen cutubyo ka mid ah ciidamada badda Mexico oo hub culus ku gaashaaman, kuwa oo goobta ka qaaday calaamadihii Mareykanku dhigtay. Goor dambe, wasaaradda dagaalka Mareykanka ayaa tilmaantay in kooxahan loo diray inay calaamadahan dhigaan dhinaca gobolka Texas ee xuduudaha Mexico, hayeeshee ay habow awgiis ku khaldameen xeebaha Mexico. Dhinaca kale, Mexico ayaa docdeeda weli wada baaritaan dhacdadan la xiriira. Tallaabadan oo internetka gilgishay waxaa loo bixiyay hal sifo oo ahayd in Mareykanku si aan ula kac ahayn Mexico u qabsaday.